waxaan iyadana dhib lahayn oo qodobka xiga uu yahay baraarujin mudan aan dhibaato lahayn dadku intayna iskuursanin inay wada hadlaan oo hasaawo iyo sheeko goor in laga wada hadlo dhib ma leh laakiin ayadana waxay u baahan tahay in la ilaaliyo aadaabta shariicada oo laga ilaaliyo maalan ereyooyinka uu malabku ka da'ayo oo markaaba shahwada iyo dareenka kicinaya oo labada isqabta hadalkay ku wada hadli jireen inaad ku wada hadashaan idinka oo aan isqabin oo ajnabi kala ah iyaduna waa xaraan iska cad oo iyaguna hadalka dabciyaan adiguna hadalka dabciso meel la isla gaadho marmarka qaarkood xataa muxuu ahay dareenkaba lagu dhameystaba ay dhici karayso waa ajnabi bi dadkaas kaliya fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad hadalka dabacsan hadhiina lay oo marka kii cudurku qalbiga kaga jiray damac gala marka aadaabtaasi iyadana waa in la ilaaliyo hadii hasaawaha iyo shukaansiga guurka marka lagu jiro waa inaan dawaabida sharciga laga bixin waa in hadalka lagu wada hadlayo uu noqdo hadal edebsan waa inuu waqti leeyahay oo uu noqon sheeko dheer oo iska daba dheero alf layla wa layla oo kala ah oo aan dhamaad balahayn oo silsilad ah waa inuu soo noqonin wax qadrul haaja kadibna laga gudbo inuu noqdo